بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad u mahadsantihiin shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob oo ugu horeeyo arrimaha reformka sida aad la socotaan 2017 waxaa la bilaabay reformkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida runtii arrinta reformka waxaan aad iyo aad aan uga mahad celinayaa madaxda qaranka iyo in la iyo intii suurta gelisay in arrintaas ay dhacdo runtii arrintaas waxay ahayd arrin ay ka soo baxday waxyaabo muxuu ahay guulo la tilmaami karo oo aad iyo aad muhiim u ahaa reformkaas wuxuu sababay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in lagu sameeyo tirakoob joogto ah wuxuu sababay in la sameeyo galfayladii qof walba ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah darajadii doonto hala haato in loo sameeyo galfayl oo ku dhameystiran yahay dhammaan wax alaalay wixii macluumaad aha ee qofka ku saabsanay waxa suurta gashay in حقوقات كعيدنك مشاراتك يجودهان وح أي لهاين أي محوها يشيء سي وناكسن وقف والبا أكون نمبر كذا الله مرسينايو أي محوها يشيء أي أرنتاس أيضا أسورة كشوا رنتي وحنده كرنا قلادات بدن أو عيدا ماذا كجري أو هنقطو محوها يتروي قلدن هنقطو نمبر عيدا أو إسلافسن أو وحيابها عجيب كأهي لوجسوا صار أي كمية هذي لقي يا بحال نمبر إن أي وضليهين لا بقف أم بسدح قف أي وضليهين أريمها صارن أي رنتي لوجس صحي waxaan dhihi karnaa boqolkiiba 99 waxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaab electronic ah ay hadda mushaaraadkooda ku qaataan oo ay si joogto ah oo billaah ay ugu qaataan waxaan rabaa marka inaan halkan idin cadeeyo waxa jira cabashooyin yar yar cabashooyinkaasna waxa keenay runtii mar hadii waxa laga shaqeynaa ay system yihiin waxba qaldamay waxba qarrimaaya waxa jira dad yar yar oo colalka ka kala tirtirsan oo ay wax ka khalaabeen sidii ama ha noqoto waqtigii systemku ay colalku maraayeen qof colka ka maqnaa oo goobtii colka uu markaa deganaa ka maqnaa ama ha noqoto muxuu ahay dad ay ka gubteen farihii ama wax ka qaldameen systemka ay maraayeen ay wax ka qaldameen dadka runtii qaybo badan oo kamid ah waa la saxay oo dib loo saxay oo colalka qaarkood marka la lagu laabtay dib loo saxay dadna wali way u dhiman yihiin in la saxo insha Allah taala arimaheeda iyo inaan xalinana waa ku guda jirnaa oo way socotaa hawshu wali way socotaa hadda maanta aan idin la hadlaayo waxay ka socotaa dib u sixistii sektorka 6aad guutada 8aad iyo guutada muxuu ahaa ii sheegay 9aad ayay ka socotaa oo teamkii ay ku maqan yihiin teamkaasuna ilaahay idankiis dhamaan colalka kale ay shakhsiyaadka ay wali aysan wax u saxmin oo wax ka qaldan ay ku jiraan way tagi doonaan wayna sixi doonaan inta markaan taa uga gudbo waxaan rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay leeyihiin nidaam waxay leeyihiin shuruuc qof walba xubin ciidanka xubin ka ahna inay ilaaliso waa laga maarmaan shuruucdaas qof ma jiri karto meel ka baxsan shuruucda ciidanka ku noolaa karta ahaana karta xubin ka tirsan ciidanka waxa qasab ah qof walba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan inay raacdo muxuu ahaa sheegay xeerarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ilaaliso nidaamka dishibiliinka inay ilaaliso kala dambeynta iyo ismaqalka ciidanka taas ayaan waxaan ku heli karnaa ciidan wanaagsan taas ayaan waxaan ku gaari karnaa hadafka iyo himilada aan leenahay taas ay ciidankeenu waxay ku ahaa karaan kuwo waajibka iyo mas'uuliyadda saaran ee qaranka Soomaaliyeed uu ka sugayo oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugayso kuwo ku guta taas ay ku noqon karaan waxaan arkayaa marka ciidamo waxa mamnuuc ka ah ciidanku inay ama gadoodaan ama ay muujiyaan muxuu ahaa ii sheegay qaab gadood inay sameeyaan waa wax meel ka dhac ku ah ciidanka qofka marka wax ka qaldan yihiin ama shakhsiyaadka wax ka qaldan yihiin waxay xaq u leeyihiin sida normalka ciidanka aheeday inay raboorki galaan colalka laga xukumo iyo taliyaasha colalka xukumo ay raboorkii iyo cabashooyinka ay qabaan u gudbiyaan taliyaasha colalkuna ay taliska u soo gudbiyaan sida haddaba la sameeyay haddana aan shaqadooda ku guda jirno qof walba ee ay xuquuqdeeda ay maqanta oo wali aan waxelin qaladkaas yarka ahaa jira qaladkaas yarkaana waa la saxa waxaan rabaa marka inaan u sheego inaan la aqbalaynin ama aan loo dul qaadan karin in annagoo ilaalinayna systemka ciidanka iyo nidaamka ciidanka shakhsiyaad gaar ah inay sameeyaan muxuu ahaa ii sheega waxyaabo ka baxsan anshaxa ciidanka inay sameeyaan arrintaas arrin loo dul qaadan karo ma ahan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa guud ahaan meel kasta oo ay joogaan inaan ilaalino kala dambeynta iyo nidaamka ciidanka inaan ilaalino anshaxa ciidanka inaan ka fogaano wax allaala iyo wixii muuji kara muxuu ahaa ii sheegay inay lid ku yihiin dishibiliinka ciidanka taa markaan taa uga gudbo runtii waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iideysto fursadan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan guud ahaan meel kasta oo ay joogaan aan u diro runtii bogaadin howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanadkii la soo dhaafay ay ku jireen iyo bilihii la soo dhaafaba iyo maalmihii la soo dhaafaba ay ku jireen runtii waxa laga gaalay guulo
aad iyo aad u weyn oo runtii aan dhihi karno waxay ahaayeen howlgalladii ugu muhiimsanaa. ilaahay idinkiisa howlgalladaas ayagana waa sii wadi doonaa. waxaa laga yaabaa bulshada Soomaaliyeed inay isweydiinayaan war qaraxyadii faraha badnay oo muxuu ahaa ii sheegay bulshada mar walba ku dhici jiray xaggay aadeen. laakiin waxaan rabaa inaan halkan bulshada Soomaaliyeed kala wadaago sanadka aan soo dhaafnay runtii aan dareemi karno in nimanka nabadiidka ah muxuu ahaa ii sheegay dhibaatooyinka ay shacabka u geysan jireen ay hoos u dhacday. in taas bedelkeeda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ay go'aansadeen meeshii bulshadooda dhiigoodu daada lahay in ayaga dhiigoodu daato, maadaama ay tuutaha u gashteen ay u dhaarteen ayna tahay waajib muqaddis ah oo saaran qof walba oo xubin ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu naftiisa u huro muxuu ahaa ii sheegay bulshadiisa. waxaan rabaa markaan wax yar ka xuso sanadka aan soo dhaafnay gudihiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xisaabaad gaadiidka marka laga tago waxyaabaha dagaalada kale ama waxyaabaha kale marka laga tago gaadiidka qaraxa ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu dhufto tiradiisu waxay gaaraysaa 16 gaari oo qarax. 16 kaas gaari haddaysan isu dhigin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku dhibaatay lahayn bulshada Soomaaliyeed, waxay ku dhibaatay lahayn hooyooyinka iyo aabbayaasha, waxay ku dhibaatay lahayn carruurta, waxay ku burburin lahaayeen ganacsiga dadka Soomaaliyeed. runtii taas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aadan runtii ugu amaanaya iyo guud ahaan ciidamada kale ee garabka u ah oo haday noqon lahaayeen hay'adaha kala duwan ee amniga waa ku amaanaya runtii. arintaasna dabcan waa sii wadi doonaa ilaahay idankiis waana xooji doonaa. waxaan rabaa markaa inaan arrinta hadalkayga kusoo gabagabeeyo. runtii bulshada Soomaaliyeed waxaan ka dalbanaynaa maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay qaateen mas'uuliyadda intaa la eg ay wajahayaan howlaha adag waajibna ay ku tahay runtii uga soo fogaadeen qoysaskoodii, uga soo fogaadeen muxuu ahaa ii sheegay guryahoodii oo hawdka ay ugu jiraan. waxaan ka dalbanaynaa shacbiga Soomaaliyeed sida haddaba ay muxuu ahaa ii sheegay hiilka iyo hooda ay noola garab taagan yihiin inay caawiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, inay taageero u muujiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, inay la wadaagaan xogaha si ay guulaha ay hadda ku socdaan ay u sii labalaabaan nimanka nabadiidkana looga saaro dalka. aad iyo aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.